ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Iran oo xoojisay weerarada ka dhanka ah saldhigyada Mareykanka iyo Israa'iil xilli Netanyahu iyo Trump ay ku andacoonayaan in la wiiqay awoodda Dahraan. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga oo caawa shaaciyay in ay haystaan hub aysan weli isticmaalin oo jiilka cusub ah, isla markaasna wax ka bedeli kara jihada dagaalkan uu socdo. Netanyahu oo digniin u diray hogaamiyaha sare ee cusub ee Iran iyo hogaamiyaha Xisbullah isagoo ku andacooday in dagaalku uu u socdo sidii ay u qorsheeyeen. Mareykanka oo la sheegay inuu Israa'iil u qabtay toddobaad inay dagaalka ku soo afjarto. Talyaaniga oo ciidankiisii kala baxay dalka Ciraaq kadib markii maanta la duqeeyay saldhig ay ku leeyihiin dalkaasi. Iran oo weeraro sawaariikh iyo diyaarado daroon ah isugu jira ku qaaday Imaaraadka, Qatar, Sacuudiga, halkaasi oo laga soo warinayo warar kala duwan oo arrimahan la xiriira. Israa'iil oo isku diyaarinaysa duulaan ballaaran oo ka dhan ah dalka Lebanon kadib markii Xisbullah ay la soo baxday awood culus. Sheekada ugu dambaysa barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay xidigii hore ee xulka qaranka kubadda cagta waddanka Faransiiska iyo kooxda Manchester United oo soo jeediyey fikrad la yaab leh oo la xiriirta dagaalada imika dunida ka holcaya. Haddaba maxay tahay fikraddaasi? Sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa. Dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir. waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. Caawa waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka bariga dhexe ka socda oo caawa galay habeenkii 14aad. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC ayaa sheegay inay beegsadeen ciidanka badda Mareykanka ee taliska shanaad ee ku sugan dalka Bahrain. Bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay caawa qaadeen mawjad weerar oo sawaariikh iyo diyaarado aan duuliyan lahayn ah oo lagu beegsaday ciidamada Mareykanka ee ku sugan dekedda Port Salman ee Bahrain. Ciidamada IRGC ayaa sidoo kale sheegay in xarunta taliska shanaad ay si gaar ah u beegsadeen goobta laga maamulo diyaaradaha drone-iska oo ay ku sugnaayeen askar. Isla wararka Iran, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Majid Takhtavarvanji ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in hoggaanka Iran ay doonayaan in la hubiyo in dagaal mar kale aan lagu qasbin Iran mustaqbalka. Wuxuu sheegay in markii dagaalka uu bilowday bishii June ee la soo dhaafay, Iran ay si aad isaga difaacday waxa uu ku tilmaamay cadowga ku soo duulay 12 maalmood gudahoodna ay ku dalbadeen xabad joojin. Laakiin wuxuu yiri 8 ama 9 bilood kadib dhinacyadii mar kale ayay soo abaabuleen oo dagaal ay bilaabeen. Wuxuu sheegay inta iyadoo laga duulayo ay hubin doonaan in mar dambe Iran dagaal dambe aan lagu soo qaadin. War kale oo la xiriira arrimahani, wakaaladda wararka Tasnim ee laga leeyahay waddanka Iran ayaa baahisay bayaan ka soo baxay ciidanka Iran oo lagu sheegay in ciidamadu ay cusboonaysiiyeen ballanqaadkooda iyo daacadnimadooda hogaamiyaha kacaanka, isla markaasna ay amradiisa u qaateen daacadnimo buuxda. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanku uu ka sii mid ahaan doono ciidamada ilaalada kacaanka ilaa iyo neefta ugu dambaysa noloshooda si ay u difaacaan madax banaanida iyo dhulka dalka. Dhanka Israa'iil, wargeyska Israa'iil Hayom ee ka soo baxa Israa'iil ayaa caawi daabacay isagoo soo xiganaya ilo xogogaal ah warbixin ku aadan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in la joojiyo dagaalka ka socda Iran, isla markaasna Israa'iil uu siiyey 1 toddobaad si ay u soo afjarto dagaalka. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in Israa'iilahaasi ay tilmaameen in nidaamka Tehran uu isbedeli karo oo kaliya
haddii uu dhaco duulaan dhanka dhulka ah ama ay dib u bilowdaan mudaharaadyo taas oo aan u muuqan mid dhowaan dhici karta. xagga Maraykanka afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ayaa sheegtay in digniin ay FBI-da u dirtay hay'adaha ammaanka looga digay suurtagalnimada weerar diyaarado drones ah oo Iran ay ka fulin karto gudaha waddanka Maraykanka gaar ahaan gobolka California sida hadalka ay u dhigtay, taas oo ay sheegtay inay ku salaysan tahay hal xog oo aan la xaqiijin. digniinta ayaa sheegtay in xogta FBI-du ay muujinayso in Iran ay doonaysay in ay fuliso weerar lama filaan ah oo ay u adeegsanayso diyaarado aan duuliye lahayn oo laga soo ridayo markab dhanka badda taagan oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo ku yaala California. Leavitt ayaa qoraal ay ku baahisay baraha bulshada waxay ku sheegtay in digniinta ay ku salaysanayd hal email oo loo diray hay'adaha ammaanka ee gobolka California oo xambaarsanayd xog aan la xaqiijin. waxay taasi ay ku dartay inaysan jirin wax khatar ah oo Iran ka imaanaya oo ku wajahan gudaha dalka Maraykanka. haddii aynu dib ugu laabanno Iran, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegay in qaraarkii golaha ammaanka xalay ka soo baxay uu ahaa mid qaanuunka ka baxsan isla markaasna aan waxba ka bedeli karin xaqa Iran ay u leedahay inay isdifaacdo. waxaa sidoo kale uu ku sheegay golaha ammaanka bayaankaasi in ay ku cambaareeyeen oo keliya Iran iyagoo ka gaabsaday inay cambaareeyaan weerarada Iran ee Maraykanka iyo Israa'iil. war kale oo dhanka Iran ka soo baxay, wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran ayaa sheegtay in dalkooda uu ogolaaday in maraakiibta dalalka qaar ay maraan marin biyoodka Hormuz. wasaaradda ayaa sheegtay in dalalka ku biiray weerarka lagu qaaday Iran aysan si nabad ah ku mari doonin marinka Hormuz. war arrimahan ila xiriira, ra'iisul wasaaraha waddanka Hindiya Narendra Modi ayaa caawa qadka telefoonka waxa uu wadahadal kula yeeshay madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian isagoo u sheegay in badbaadada muwaadiniinta Hindiya ay tahay in la hubiyo iyo in si xor ah badeecadaha iyo tamarta ku socda dalkiisa ay tahay in si gaar ah la isaga xil saaro. war kale oo coladan la xiriira, kooxda Xisbullah ee Lubnaan ayaa sheegtay inay duqeymo la beegsatay bartilmaameedyo ku yaala gudaha Israa'iil. bayaan caawa ka soo baxay Xisbullah ayaa waxaa lagu sheegay in sawaariikh tayo sare leh ay ku garaaceen magaalada Nahaariya ee waqooyiga Israa'iil. waxay sidoo kale sheegeen inay gantaallo ku asqaysiiyeen goobo ciidamada Israa'iil ay ku sugnaayeen oo ku yaala buurta tuulada Al-Adaisa, isla markaasna ay weerar gantaalaha ku qaadeen saldhigga ciidamada Israa'iil ee Al-Malakiya. dhanka Israa'iil, telefishinka kanaal 12 ayaa tibiyey in ciidanka Israa'iil ay u dhaqaajiyeen tiro badan oo taangiye ah xadka ay la wadaagaan Lubnaan. dhinaca kale, wakaaladda warbaahinta Israa'iil ayaa soo xigatay ilo wareed sheegaya in Tel Aviv ay ka fiirsanayso in toddobaad gudihiis ay ku qaado howlgal ballaaran oo xooggan Lubnaan. dhinaca kale, hay'adda warbaahinta Israa'iil ayaa soo xigatay ilo sheegaya in Tel Aviv ay ka fiirsanayso in weeraradan ay xoojiso, waxaana la sheegayaa in kulamo amuurahani ku aadan habeennimadii xalay ay yeesheen mas'uuliyiinta sarsare ee Israa'iil. wararkaas inta dagaalka waddanka Iran, Trump ayaa waxa uu sheegay in xaaladda dagaalku ay tahay mid u socota sida hadalka u dhigay jihadii ay ugu talagaleen. waxaana sidoo kale uu sheegay in Iran waxyeello ballaaran loo geystay dagaalkana dhowaan uu soo afjarmi doono. arrintaas waxaa loo fasirtay inay tahay mid uu ku xasilinayo suuqyada oo sicir barar u ku yimid qiimaha shidaalka. laakiin waxaa leeyahay Iran awooddeeda isma bedelin oo ilaa iyo hadda inkastoo la duqaynayo weerar ayay soo qaadaysaa. weliba arrinta la yaab kale waxa weeye Iran caawa waxay ku dhawaaqday inay haysato hub gaar ah oo ay ugu tala gashay sida hadalka u dhigtay dagaalkan inay jiha cusub u samayso. waa hagaag. dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shir jaraa'id qabtay goor dhaweyto, waxaana uu ka hadlay dagaalka Iran iyo weliba xaaladaha iminka socda. wuxuu ku andacooday in wax aan la filayn ay la kulmeen oo ah
in Iiraan dharbaax culus ay ku dhufteen sida hadalka uu dhigay laakiin Netanyahu wuxuu yiri waxaan qabanayaa shir jaraa'id meesha Iiraaniyiintu shirka jaraa'id ku qabanayaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo saxaafadii oo joogta sida Ismaaciil Bakhaa'i oo kale wasiirka arrimaha dibadda idaacadihii xitaa Mareykanka uu toos ula hadlayo Netanyahu wuxuu doortay goob qarsoodiya inuu ku qabto shirka jaraa'id wariyaasha waxay su'aalaha ku weydiinayaan telefoon meeshii loogu talagalay inay soo hor fariistaan haddana wuxuu ka hadlayaa dagaalkan inay guulo waaweyn ka gaareen wuxuuna si toos ugu hanjabay hogaamiyaha sare ee cusub ee Iiraan Mujtaba Khamenei iyo hogaamiyaha ciidamada Xisbullah Sheekh Naciim Qaasim wuxuu yiri haddii aan ahaan lahaa shirkad caymiska bixisa inaba haba yaraatee wuxuu yiri nimankaasi ma siiyeen buu yiri caymis macnaha waxa weeye xilli kasta ayaa la dili karaa inkastoo alla gacantiisa ay ku jiraan wax walba oo la xiriira dhimashada qofka dhinaca kale bal haddaba aynu eegno dalka Turkiga warka soo yeeraya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa ugu baaqay Israa'iil inay joojiso duqeymaha ay ku haysan Lubnaan isagoo ka digay in dalkaasi burbur qarka u saaran yahay haddii weerarada ay sii socdaan isagoo Ankara kula hadlayay saxaafadda xilli uu hareer taagnaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Johan Fodefol Fidan ayaa cambaareeyay ballaarinta ololaha military ee Israa'iil ee gobolka wuxuu sheegay in Israa'iil oo raacaysa siyaasado ballaarin ah ay dagaalkeeda wasakhda ah u gudbisay Lubnaan sida hadalka uu yiri isla markaasna weerarada Israa'iil ay tahay inay ishortaagaan hawlaha la xiriira dowladnimada waddankaasi ee Lubnaan war kale oo colaadda gobolka bariga dhexe la xiriira hay-adda maraakiibta caalamiga ee magaceeda loo soo gaabiyo IMO ayaa qaban doonta kulan degdeg ah toddobaadka soo socda si looga wada hadlo qataraha ku wajahan maraakiibta bariga dhexe kulanka oo dhici doona 18 ilaa 19 bishan March ayaa lagu qaban doonaa magaalada London waxaa codsaday 6 ka mid ah 40 xubnood ee hay-adda kuwaasi oo kala ah Britain, Masar, Faransiiska, Morocco, Qatar iyo Imaaraadka Carabta arrintan ayaa imaanaysa iyadoo walaac laga qabo kororka qiimaha shidaalka kadib xiritaanka muhiimka ah ee marinka Hormuz waxaana la sheegayaa maanta in laba markab oo kuwa shidaalka qaadaha lagu weeraray waddanka Ciraaq ugu yaraan hal shaqaalaha ayaa lagu dilay isla war arrimahan la xiriira dowladda waddanka Talyaaniga ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah uga saarayso dhammaan ciidamadeeda saldhigga military ee ay ku leedahay gobolka Kurdida ee waqooyiga waddanka Ciraaq kadib markii weerar drone ah lagu qaaday saldhiggaasi mas'uuliyiinta Talyaaniga ayaa sheegay in tilaabadan ay dhamaystirayso ka bixitaankii horey loo qorsheeyay wasiirka gaashaaniga ayaa u sheegay barnaamijka wararka Talyaaniga ee telefishinka TG1 in bixitaankan horey loo qorsheeyay ka hor weerarkii Arbacadii lagu qaaday saldhiggaasi haddaba warka la xiriira Iiraan inay leedahay waxaan helnay ama haysanaaba hub halis ah oo dagaalkan wax ka bedeli kara haddii aynu isku dayno inaan faahfaahin dheeraad ka bixino taliska ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ayaa waxay sheegeen inay haystaan sawaarikh weli aan la isticmaalin oo awood dheeraad leh isla markaasna dagaalkan ay wadi karaan muddo aad u dheer